wiilka ayaa hurdada ka toosay wuxuuna arkay laba mayd oo hortiisa ka laalaada. Maxaa dhacay? Waxaa la ogaaday in waalidkiis oo awoodi waayay inay bixiyaan deyntii bangiga ay isdileen intii uu hurdayay. Maalintaas wixii ka dambeeyey wiilku wuxuu noqday agoon. Waxa keliya ee ay waalidkiis uga tageen wuxuu ahaa hal qadaadiye oo hal rube ah. Wiilka saboolka ah xitaa wuxuu lumiyey gurigiisii keliya kaas oo bangigu xaraashay. Maadaama uusan haysan meel kale oo uu aado, hogaamiyaha tuulada ayaa u diray xarun agoomo. Halkaas wiilku wuxuu hoos u eegay qadaadiyadii gacantiisa ku jirtay wuxuuna xusuustay wax uu aabbihii mar u sheegay. Dunidan dadka ugu xooggan waa kuwa aan cidna wax ku lahayn. Markaas isagoo qadaadiyadaas haysta, wiilku wuxuu u tegay farshaxan tattoo sameeya wuxuuna ku sawirtay qadaadiyadaas qoortiisa. Qalbigiisa ayuu ku dhaartay in noloshiisa oo dhan uusan weligiis cidna wax ku lahaan doonin xitaa hal senti. Daqiiqad kadib wiilkii oo la oran jiray Mahesh wuxuu noqday nin weyn. Qadaadiyadii hal rubee ahayd waxay noqotay astaantiisa wuxuuna dhisay nolol aan la joojin karin isagoo noqday mid ka mid ah deyn bixiyayaasha loan sharks ugu awoodda badan Hindiya. Maalin kasta keliya dulsaarka uu qaato ayuu ka helayay lacag gaaraysa 5 milyan oo rubees wuxuuna lahaa boqolaal rag hubaysan oo hoos yimaada. Maalin kasta Mahesh wuxuu ku jiray ururinta deymaha ama u socodkooda. Qof kasta oo uu lacag ku lahaa oo aan waqtigii lagu heshiiyey bixin, xaalad kasta oo uu ku jiray xitaa haddii uu waddo dhexdeeda ku mashquulsanaa, Mahesh dan kama gelin. Wuxuu si toos ah ugu tegi jiray oo uu dalban jiray lacagta. Haddii ay iska dhigaan kuwa aan fahmin ama ay diidaan, waxay la kulmi lahaayeen cawaaqib xumo. Laakiin nin sidan u naxariis daran, maalin ayuu intii uu deymo ururinayay waxa weeraray koox tuugo ah. Baabuur super car ah ayaa si lama filaan ah gadaashiisa uga soo galay, halka mootooyin badan ay gebi ahaanba xireen waddadii. Waxay ku qasbeen inuu joogsado meel gaar ah. Isla markiiba bulldozer ayaa soo baxay oo xiray jidka hore. Boqolaal tuugo ah ayaa horay u gaadmo ugu jiray si degdeg ahna u hareereeyay Mahesh. Markaan xitaa haddii uu baala lahaan lahaa, ma jirin waddo uu ku baxsan karo. Daqiiqadaas nin murqo weyn oo wasakh muuqaal ah ayaa ka soo degay baabuur. Wuxuu u yimid Mahesh wuxuuna ku hanjabay inuu dhammaan lacagtiisa ka qaadan doono haddii uu doonayo inuu si nabad ah gurigiisa ku tago. Laakiin Mahesh xitaa ma uusan fiirin. Ninka tuugada ah ayaa dareemay eeb wuxuuna si xanaaq leh u qaatay gitaar ag yaalay wuxuuna ku burburiyey muraayadda baabuurka Mahesh. Mahesh isagoo gaariga dhex fadhiya ayuu si degan u sii joogay. Si tartiib ah ayuu u siibay muraayadihiisa madow, wuu iska saaray bluetoothkii dhegta, dabadeed si aan caadi ahayn ayuu albaabka u furay oo u soo baxay. Markuu hareeraha eegay ayuu si kalsooni leh ugu soo dhaqaaqay ninkii murqaha lahaa wuxuuna si saaxiibtinimo u yidhi. Ma og tahay qofka aan ahay? Anigu waxaan ahay Mahesh. Adiguna ma igu dhiiranaysaa inaad i dhacdo? Ka hor inta aanan xanaaqin jidkayga bax. Markaas ayuu Mahesh u jeestay inuu baxo. Laakiin ninkii murqaha lahaa wuu necbaa qof kasta oo iska dhigaya mid adag. Wuxuu si degdeg ah u soo orday oo ku dhuftay laad xoog leh. Laakiin dhaawacaas Mahesh waxba kama gelin. Cadhadii ku dhex jirtay ayaa isla markiiba kacday. Wuxuu dib u jeestay, suunka ayuu hagaajistay, wuxuuna isu diyaariyey inuu cashar u dhigo kooxdan oo dhan, cashar aysan weligood iloobi doonin. Ninkan waa ninka ugu naxariis daran Ruthless ee Hindiya. Si lama filaan ah, haweeney ayaa ku dhacday gacantiisa. Intay dhici lahayd, Mahesh si degdeg ah ayuu u qabtay gacanteeda. Laakiin markii ay dib u soo jeesatay oo ay isaga eegtay, waxay noqotay sidii jacayl markiiba ku dhacay. Mahesh wuxuu dareemay sidii koronto ku dhacday. Qalbigiisu si xoog leh ayuu u garaacay, labadooduna way is eegeen. Ilbiriqsigaas Mahesh hore ayuu jacayl ugu dhacay. Wuxuu si adag u qabtay gacanteeda isagoo aan rabin inuu sii daayo. Kooxdiisa ayaa yaab ku istaagtay oo daawanaysay. Gabadhii si xishood leh ayay gacanteeda uga soo furtay. Kadib markii ay Mahesh u mahad celisay, si degdeg ah ayay uga tagtay meesha. Markii uu arkay iyada oo baxaysa, Mahesh wuxuu ku dhaartay inuu si walba ku heli doono jacaylkeeda. Dhanka kale, gabadhii si qarsoodi ah ayay dib u soo jaleecday sida inay qadar tahay. Gabadhan quruxda badan mar kale ayay ka soo muuqatay hortiisa Mahesh. Taasi waa waxa loo yaqaan qadar, destiny. Markii Mahesh ogaaday in magaceedu yahay Kafesa, isla markaana ay tahay arday jaamacadeed oo u baahan lacag si ay waxbarashadeeda u dhammaysato, wuu ka labalabayn. Isagoon damaanad collateral dalban, wuxuu si toos ah u siiyey hal eber rubees. Ma jirin sabab gaar ah, laakiin tani waxay si weyn u taabatay Kafesa. Laakiin markii ay lacagtii Mahesh qaadatay, Kafesa waxay si toos ah u tagtay casino, khamaar, halkaas ayayna lacagtii ku ciyaartay. Si lama filaan ah, Mahesh ayaa halkaas u joogay isagoo deymo ururinaya, wuxuuna arkay waxa ay samaynayso. Wuxuu arkay sida ay ugu xirfad badan tahay miiska khamaarka iyo sida ay si fudud u cabayso cocktails. Ugu dambayn wuxuu garwaaqsaday inaysan ahayn arday jaamacadeed, balse ay tahay qof khibrad u leh qiyaamada iyo khamaarka. Taasi waxay qalbigiisa ku reebtay niyad jab, wuuna iska tegey. Markii uu guriga ku laabtay, intuu sii fikirayay ayuu sii murugooday. Wuxuu yidhi, jacaylka ha iska tago. Waa been. Adduunkan keliya lacagta ayaa aan khiyaanayn. Sidaas darteed ayuu Kafesa wacay oo u sheegay inay la kulanto. Markii ay kulmeen, Mahesh si toos ah ayuu u kashifay beenteeda wuxuuna ka dalbaday inay hal eber rubees oo ribo leh isla markiiba u soo celiso. Laakiin markii Kafesa fahantay xaqiiqda, isla markiiba ayay iska tuurtay warkii beenaadka ahaa, waxayna si xanaaq leh u tiri. Lacagtan si sharci ah ayaan u amaahday. Maxaan ugu celinayaa? 1 dinaar idin siin maayo. Maxaad iga qaban kartaa?
mahesh oo xanaaqsan ayaa hore u soo dhaqaaqay oo dhirbaaxo xoog leh ka dharbaaxay wejiga. haddii aanay asxaabtiisu joojin lahayn xitaa wuu laaday lahaa. wakhtigaas kafesa gebi ahaanba way joojisay iska dhigista waxayna soo saartay taleefankeeda si ay u wacdo aabaheed. ilbiriqsigii xigay helikobtar hubaysan ayaa hawada soo dul istaagtay, laba askarina waxay si toos ah qori culus ugu jeediyeen mahesh. waxaa la ogaaday in kafesa ay tahay gabadha bilyaneer la yidhaahdo rajaan. ninkaas rajaan wuxuu ahaa madaxa dembiyada ugu awoodda badan hindiya, sidoo kale wuxuu caan ku ahaa inuusan daymo bixin. wuxuu amaah qaataa laakiin weligiis ma celiyo. laakiin mahesh waa mahesh. ma jiro dayn uu ka hari karo ururinteeda. xitaa haddii uu yahay boqorka naarta wuu ka qaadi lahaa lacagta uu ku leeyahay. ninkii waday baabuurka rolls-royce wuxuu ahaa ninka ugu isla weyn uguna dembi badan dhammaan hindiya, shaki la'aan. qofna hindiya kuma dhicin inuu ka dalbado inuu bixiyo deymihiisa, sababtoo ah qof kasta oo isku daya waa la garaaci jiray ilaa uu ku dhow yahay dhimasho. markuu hadlo qofna kuma dhici jirin inuu ka hor yimaado. taasi waxay ahayd sharciga koowaad. sharciga labaad wuxuu ahaa inuu ahaa nin aad u kacsan oo aan la xakamayn karin. laakiin maalin maalmaha ka mid ah nin ayaa diiday inuu u hoggaansamo raj. wuxuu si toos ah u galay xafiiska raj wuxuuna ka dalbaday inuu bixiyo lacag uu ku lahaa gabadhiisa. markii raj uu maqlay ereyga lacag bixin ama dayn celin wuu aad u xanaaqay. in lagu yidhaahdo lacag bixi waxay islamarkiiba ka dhigtay inuu amro ilaaladiisa inay mahesh bannaanka ka tuuraan. laakiin mahesh ma ahayn qof si fudud loo cabsigelin karo. maanta wuxuu go'aansaday inuu raj qasbo inuu bixiyo. markii dambe isagoo jidka ku sii socda guriga raj ayuu mahesh hor istaagay isagoo dalbanaya in lacagta islamarkiiba la bixiyo, haddii kale cawaaqib ayaa imaan doona. taas ayaa si weyn u kicisay xanaaqii raj. wuxuu si caro leh ugu soo dhaqaaqay mahesh wuxuuna qabtay guntiisa isagoo bilaabay muran. sidee buu ugu dhiiran karaa inuu si aan xad lahayn ugu dhaqmo dhulka raj? ma isdilayaa mise? raj wuxuu markaas kala baxay bastoolad yar oo dahab ah. laakiin mahesh markii uu arkay isaguna wuu xanaaqay. qofna weligii hub kuma hanjabin isaga, islamarkiiba wuu ka falceliyey oo dagaal ayuu bilaabay. xilligaas dadkii meesha joogay waxay dhammaantood soo saareen taleefannadooda si ay u duubaan muuqaalka. mid ka mid ah raggii raj ayaa si degdeg ah isku dayay inuu joojiyo isagoo ku leh halyey run ah, si degdeg ah uma lumin karo dagaal. isagoo sidaas leh ayuu raj ku riixay gaariga. markii ay baxayeen raj wuxuu ku tuuray hanjabaad culus, wiilyahow sug. maalintii xigtay mahesh wuxuu ku socday xeebta markii si lama filaan ah koox rag waaweyn ah ay beegsadeen. waxay u soo diray raj si ay ula tacaalaan mahesh. markii labada dhinac isdhaafeen mid ka mid ah raggii waaweynaa ayaa amar bixiyey. dhowr nin oo muruq weyn leh ayaa si degdeg ah u booday waxayna tuureen shabag weyn oo ay ku qabteen mahesh. ka hor inta uusan falcelin si adag ayaa dhulka loogu qabtay isagoo si aan faa'iido lahayn u dagaalamaya. kadib laba nin ayaa dhinacyada ka laaday, koox kale oo badan ayaana ku hareereeyey iyagoo si xun u garaacaya. waxaa cad in si qorshaysan loo soo abaabulay. waxay si xoog leh ugu garaaceen ulo, kadibna waxay ku xidheen xadhko si ay doon kalluumaysi ugu jiidaan iyagoo damacsanaa inay webiga ku ridaan si ay sharkii u cunaan. mahesh wuxuu dhulka ku jiidayey si xun, laakiin xilligan halista ah wuxuu laaday tiir alwaax ah oo u dhow isagoo adeegsanaya xooggiisa. islamarkiiba hawada ayuu u booday isaga oo shabaggii weli saaran yahay. isagoo adeegsanaya awooddiisa aan caadiga ahayn wuxuu si fudud u rogay laba doon oo kalluumaysi oo midkiiba culayskiisu yahay 1 ebertan. mahesh runtii wuxuu noqday mid aan la joojin karin. raggii kale ee meesha joogay way naxeen oo afka kala qaadeen. ma jirin wakhti hadal lagu sii daayo. mahesh ma ahayn keliya inuu xanaaqo, wuxuu galay heer awood buuxda ah isagoo wajahaya boqolaal nin. mahesh wuxuu adkaystay suunkiisa, ugaarsiguna si rasmi ah ayuu u bilowday.